الله الرحمن الرحيم وحنو سعودي عشركيني chapterkeeni trigonometry casharkan waxaynu ku qaadan doonaa haddii la yiraahdo wax la yiraahdo sida loo cabiro markii xagal lagu siiyo iyo dhinaca kale ee hadhay sidii aad u cabiran lahayd ama aad ula soo bixi lahayd. Marka ciwaankeenu wuxuu noqonayaa find a missing angle, missing side length. dhinac baad raadinaysaa giving an angle measure. waxaa lagu siinayaa marka gives an angle waxaa lagu siinayaa xagal baa lagu siinayaa. Marka suppose ka soo qaadiyo giving waxa lagu siiyeyba xagal baa lagu siiyey iyo maxaa lagu siinayaa iyo dhinac. marka ma la soo bixi kartaa su-aashan isweydiinayna waxa weeye ma la soo bixi kartaa can you find the remaining side dhinaca kale ee hadhay ma la soo bixi kartaa. marka jawaabta haddaynu ka jawaabno waxa weeyaan waynu la soo bixi karnaa maxaynuna kula soo baxaynaa you can use the trigonometry functions. trigonometry fasaradii trigonometryga adoo isticmaalaya ayaad la soo baxaysaa oo ahaa maxay ahaayeen sin iyo cos iyo tan bay ahaayeen. marka sida aad u heshid waa inaad haysataa saddex xagal kuma leh right side length to find saa u heshid side length waa inaad haysataa right triangle saddex xagal waa inaad haysataa. marka you have waxaad haysataa marka tusaale aynu iska gelinaa sawirkaasaa haysataa. maxaynu soo sheegnay markii hore in lagu siinayo dhinac iyo xagal. marka 5ka iyo 30gaasaa la siiyey. marka waxaa lagu yidhi find the missing side by using trigonometry function adoo isticmaalaya trigonometrygii sin iyo cos iyo tan soo saar dhinaca maqan. givenkayga haddaan qorto tiitada waxaa la siiyey 30 degree. opposite-kayga waa dhinaca aan raadinayay ah x. hypotenuse-kayguna waxa weeyaan 5. marka intaas ayaan haystaa. marka waxaan ogahay marka in sinka lagu heli jiray opposite iyo hypotenuse. haddana waxaan haystaa opposite iyo hypotenuse. dhinaca maqan sida aan u helo waxaa la siiyey dhinacii kale ee ahaa sinka oo tiitadii oo ah 30. waxaa oranayaa sin 30 waxay ii leegtahay x oo aan u qiimiyey 5. marka si aan u helo marka qiimaha saxda ah x dhinac walba waxaan ku dhufanayaa 5 multiply 5 both sides baan oranayaa. marka then we find waxaan helaynaa markaas waxaynu helaynaa 5 baynu ku dhufanay sinka sin 30 oo ah 2.5 waayo 5 iyo 5 hooseeya ahayd ayaa isla baxay. marka waxaa scientific haddaa isticmaashidna uu kusoo saaraya 2.5. use your TI calculator to compute 5. intaasaa gelinaysaa kadib muxuu kusoo saarayaa waa ka sawirkiisii 2.5 waxaana helaysaa x oo ah 2.5. marka intaas ayuu inoogu eegyaa insha allah haddii ilaah yiraahdo.